labadan suuradood sidatan haddaad u akhrisid waxaan si boqolkiiba boqol hubaa aaminsanahay insha Allah inaad wax aad doonaysid gaaraysid saacad gudaheed bay dantaydu ku imaanaysaa adinkuba sameeya saalixiinta ilaahay baa sameeyay faraj badan baana lagu helay waxaana saas u ogaaday oo saas u leeyahay markaan cajaa'ib badan ka arkay markaan fahmay macnaha ka waramaya iyo xaaladda ka waramaya adoo raalli aad is arkaysaa stresska uga akhriso fikirka uga akhriso culayska uga akhriso maalan yacniga ka akhriso way ka qaadi shaqo la'aanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا بركيسنا وكسو دوادا موقالك كان مرحبا آمنسنا هي قرآن الكريم كايو منافعات كيسا وحقبت كيسا ومركز تا أو سي حقيقة أو رنا أنو حقا هرمركا يتيكسا أغسي صعنا إن شاء الله كان هداد آمنسنتاي كان هداد آمنسنتاي وحيالا هذا علوس إنو فرفوريو كان سirtiisa haddaad fahamtid sida loo adeegsado haddaad si fiican u garatid waxba ka xirxirmi mayaan ilaahay wax walba waa kuu fududaynaya ilaahay asaga ku raali gelinaya ilaahay asaga laabtaada sharaxaya oo waasicinaya laab qabow oo raali ka tahayna ka dhigaya culayskana kaaga dambaysiinaya fudaydyo tiro badan waxaad rajaynaysid iyo waxaad tamaninaysid inaad ku gaaraysaa rajahana waa halka kan halkaana u marino ilaahay dan kasto aan ka leenahay insha Allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago kugu faa'iideeyo ana naftayda ka bilaabay tiinana ku xijinaya laba suuradood oo quraanka kamid ah labada suuradood badankeen ama ideelkeen waa naqaana laakiin inta in ka badan nooma dheera waxba oo intaas un baanu ku dul wareegnaa hase yeeshee aayad kasta bal kelmad kasta iyo xaraf kasta iyo suurad kasta oo quraanka kamid ah sirteeda lagama salgaari karo maalinba waxba soo baxay sida anagoo faa'iidooyinkii quraanka u guranayno maalinba sanadba wax soo baxayaan casriba wax imaanaya ayaa aakhiradu imaanaysa asaga markaa wuxuu noqonayaa insha Allah shafiicana midka noo shafiicay labadan suuradood sidatan haddaad u akhrisid waxaan si boqolkiiba boqol hubaa aaminsanahay insha Allah inaad wax aad doonaysid gaaraysid waxaad doonaysid inaad gaaraysid rajadaadu inay soo dhawaanayso farajkaada iyo yusrigaada inay soo dhawaanayaan labadan suuradood midba meel ayaan anigu noloshayda ku tijaabiyay suuratu alam nashrah weeye iyo suuratu wadduha waa laba suuradood oo gaagaaban oo isku dhagan bimacnaa isku hoos qoran oo isku dhow kana mida dadkeena qaar quraanka ama suuradaha ku tilmaamaan Allahu akbarta oo aan filayo 22 suuradood in ay yihiin ama 20 baduba xisaab insha Allah taala wadduha bi alam nashrah way magacyadoodaad garatay macnahan ka hadlayo markaas si fiican u fahamtay wadduha waa iftiin soo baxay waa bariyay waa qorraxdii oo barqa joogta noloshaaduna waa bariyay noqon farajkaadu waa bariyo imaan sida qorraxda u soo baxda khayrkaadu u imaanaya waxa rajaynaysid alam nashrah bal yirtan kalana yani alam nashrah macnaheedu waa maxay suurada hadaynu aamino oo ku dhaqanno cuqdad naqaano waa naga baxaysa xiqdi xasad ma naqaano wax aan ka xumaanayno qof walaalka u haysto ama walaasha haysata ma jirayaan yaani laabtaada ilaahay waasiciyay laabtaada xataa waxay aqbalaysaa in ay qaabisho ama ay la fariisato qofka xataa fikriin isku khilaafsan yihiin oo awood qofka wuxuu u leeyahay inuu nolosha isbedelkeeda aqbalo oo qadarka ilaahay aamino alam nashrah suuradaasi hadda ka hor baan muuqaal walaalaha idin la wadaagay oo ku saabsan alam nashrah iyo saliga maadaama suuraduba nabi maxamed ka hadlaysay culaysyada ilaahay ka fududeeyay iyo sida alla ugu gargaaray rajihiisa iyo noloshiisana ugu rumeeyay wallahi ajaa'ib way intii suurada xilligaasi ka faa'iideysatay kuwa badan maanta way maqlayaan way daawanayaan ana iska bilaabaya yaani waa suurad cajiib culaysyo badan baan uga gudubnay
فرج بدن با إلهي نسي الحمد لله والضحانا أيضو بيس كدابة أيضو النبي محمد بك ورميسا صلى الله عليه وسلم وفي صلاة حليادو النبي عليس يدا يا عداديس كقريشي ومارك شيء حتى درسكي سي إيركس أو إيمانيين حليادا سيبلوضو كورمية حليا إلهي عدو كسر لدي لكن إلهي أقوه اللي هو كجر كاسدي إلهينا يروى رالي النقون رالي ما النقونيس ولا سوف يعطيك ربك فترضى وحول بعد هليس مركز رالي النقونيس أدوكن سيدا وهمي وحول بو أدونيس إناد هليس دوهنونا قنعيسي جوز كدمنا كقسليس لبدا الصورة دوت ماشي كهالليان يا ماشي السعودان يا وحي كسابسين يا حلقي سود دقين يا عدة كور رميان يا جوي كور رميان من هداد فهمتي موضوع أنا واد فهمت شكينا كاجا متشرو سيدا وآخرين مركز لبدا الصورة دوت وقديدان هذا مقال كان يدكو سيدا labadan suuradood magacaad adigu leedahay xarfihiisa kala duwan intuu ka kooban yahay akhrinaysa maxaan ku iri magacaad leedahay magacaadana adigu ka turjumaya xaaladaadu ka turjumaya dabeecadaadu ka turjumaya noloshaadu ka turjumaya magacaad adigu leedahay xarfihiisa tirada ku soo baxda ayaa labadan suuradood akhrinaysa tusaalo kale waxa lagu yiraahdaa maxamed waa maxay ma baa ugu horeysa Soomaa حابة كحكته ما كلا كحكته أما ميم وحكحجه داء مدال أفر محمد أفر شير معناها تيبا أفر شير هدو حرفها كبديهين انتو كله عبد الله تصال كلا تري وانت وكبديه مقعد لا راح رجي يضم مقعد أدو تري حرفيه فيري حرفها كصومالي هان وفيري كدي من حسابي من انت كوصو بحال صورة لبضان صورة كآخر سيدة سمينيسا شروط تماينا كسو بحدا هورتا نيادادو waa inay tahay niyad dhammaystiran oo aaminsan suuradahan niyadaadu waa inay yaqiin tahay ilaahayna dushiisa wax laguma tijaabiye hasayeese shamee malahana ilaahay ku wanaaji malahada ha wanaagsanaado niyaduna hata yaqiin dhammaystiran soo tahaaro qaado tahaaro dhammaystiran qibladana u jeeso kor hadaa ka taqaani kor ka akhri musxafka hadii kala soo qabso ka akhri qibladaada u jeedo magacaada fiiri xarfihiisa mid intaasi ka akhri markaas kadibna musxafka isku laab isku dhaji meel dhig hal saac kadib musxafka fur kala balaq meesha ku soo baxda fiiri marka tusaalo kale hadii ay noqoto meeshan ku soo baxday meel bisinku hoos ku qoran yahay inta kalena suurad kale aayada suurad kale raacsan ay yihiin ama kuma qorna bisinba meeshan ama meeshan korow ka bilaamaya bishinku يعني ساعة كدب أخرج كادي ساو كردي وحكو صباحدي صورة بسين هالكا كبلامي رجدا دوا كدو دهي حلقة أي نوع كلاتاي تصالو كلا واحد نقطيبة أي نودهنو بسين كمجر هالكان لبدان بيج مدة إن قادة تالغيا بدن تادو حلقة يكوفو داتو إن شاء الله تبنبري لبا أسبوع إن قادة تالغيا haddii bisinku halka ka bilaabmana muddo inta ka yar waa xilliga ugu dhowdahay saacadaba in dantaada ku fududaataa macquul ah niyeyso malahana wanaaji haddii bisinka haaf ka bilaabmo waa ka dhowdahay tii hore oo bilaa bisinka meeshaan ahayd rubama laga yaabaa 3 bari 4 bari 5 bari dantaada iyo waxa rabtay inaad ku gaartid sidaas sameynaysa mar haddaynu kan haysano kan aaminsanahay kitaabkan ku dhaganahay asraartiisana aynu fahansanahay aynu isticmaalayno wax culays naga noqonaya ma jiro albaab kasta anaga furanayna si fudud baanu ku furanayna maxaanu ku niri labadan suuradood waxaad akhrisaa magacaada xarfihiisa tirada ay leeyihiin akhri dabcan waa niyeysan tahay waxaan akhrinaysid wujdaankaada iyo dareenkaada waxaa ku jira in aad muraadka rabtid guur shaqo adigu muraad ma ku fasirayo muraad dan baad leedahay dantaadaas baa rabtaa in ilaahay kuu fududayo niyadaadu waa wanaagsan tahay malaha ilaahay waaba ku hirgelinaya ilbriqsi bay ku imanaysaa saacad gudaheed bay danteedu ku imanaysaa waa akhrisay intaan kuu sheegay adoo qiblada u jeedo daahiro nadiif oo dhammaystiran kadibna waa isku laabtay kitaabka halkaas dhigatay saacad kadib hal saac oo dhammaystiran 60 daqiiqo kadib baad kala furtay waxa ku soo baxa fiir marka
hadday meeshu labadan page meesha ku soo baxda bisima ku qornayn dantaada way dhowdaa laakiin xoogaa bay jirtaa haddii bisinku meesha ugu horeysa uu ka bilaabmo page-ka ama safxada dantaada waa dhowdahay u diyaar garow haddii haafu ka bilaabmana xoogaa taas hore iyo tan bay u dhaxaysaa maalmo yar bay qaadan laakiin taa hore meesha bilaa bisinka waa ka dhowdahay insha allahu tacaala adinkuba sameeya saalixiinta ilaahay baa sameeyey faraj badan baana lagu helay waxaana ka mid ah dadka ku faa'iiday labadan suuradood naftayda iyo noloshayda ilaahayna ugu xaqiijiyey muraadiyo badan intaad tafsiirka furatid labadan suuradood ku celceli hal tafsiirna ma xataa kutubta tafasiirta ka waran bal fiiri ruuxdaadu waa istaagaysaa alam nashrax laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث قرآنك سورة ذا كالدون ككوبن يهي كوا وجعل هي كمدين لبدان سورة ذا كاكابن وحان الساس ogaaday oo saas u leeyahay markaan cajaa'ib badan ka arkay markaan fahmay macnaha ka waramayaan iyo xaaladda ka waramayaan muraad bayba ayagu ka waramayaan muraad la xaqiijinayo kaadana ku xaqiijiso insha Allah taala ilaahay tawfiiqdahana waafajiyo dambigeena aan dhaafo u fiirsada sababtay ku soo degtay wadduha alam nashrah adigu fiir aayada حتى علايس وين هدو كايستو لو اويس علايس كاس marka labada suuradood aad fiirisid aqris baadon bushimaha kala furinba qalbiga ka aqris za u fiirisid adoo qosliya is arkaysa laakiin haddaanu macnaha garanayna waay haddaynu macnaha fahansanahay waay xitaa haddaad fahansanayn ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa waxa kaaga iimaanaya naxariis degan oo adiga iyo suuradahan isku xiraya oo bimacna wax badan inay ka dhaxeeyaan ay yani ku tusaya qabiil baanu sheeganaa markay dhibaatana qabsato oo habar wacana meel kale ku faanaa iyo wixii la midka laakiin kuwaana kaaga fiican kuwaan u waco kuwaan akhriso niyadaaduna saafi ha ahaato waana gaaraysaa waxa doonaysid khayr kasta oo mid adduunyo mid aakhir adoo raali aad is arkaysaa stresska uga akhriso fikirka uga akhriso culayska uga akhriso maala yacniga ka akhriso way ka qaadi shaqo la'aanta yani haddii la kooriyo xumaan aad joogtaynaysid filmaan xun iska daawanaysid tusaale kale bas kaga maara la'adahay dhaqamo xun oo tiro badan oo adiga ku qarsoon iyo kuwa kaleba ayaad ogtahay akhriso adoo waxa karaahistay oo laad ku qaadaad arkaysaa wixii xumaana ilaahayna uga toobad keenay oo ilaahay u noqday qalbigiisu dabcayo laabtiisu xaaran tahay cugdad aan aqoon ciil aan aqoon xasadnimo aan aqoon oo ku taala aan aqoon oo raacay nabi maxamed wadadiisa calayhi salaatu wasalaam quraankana aaminaya noloshiisa inuu wax ka bedelayo nolosheena wax ka bedelaya insha Allah taala ilaahay idan barakeeyo meel kastood ku sugantihiinba quraanka kariimka waa iftiinka nolosheena جزاكم الله خيرا.